dal boqolaal sano hooy u ahaa boqortooyin waaweyn oo dunida xukumay dal dhul kala duwan oo ka kooban buuro baraf leh lama degaano kulul iyo xeebo qurux badan dal soo saaray shakhsiyaad caan ka noqday dunida oo weli la xuso dal martigeliyay muranadii ugu cajiibsanaa qarnigan dal haysta kaydka saliid iyo gaas dabiici oo ka mid ah kuwa ugu ballaaran caalamka ku soo dhawaada barnaamijka si aynu dhex mushaaxno dal qarniyo badan dunida ku qurxiyay dhaqan hal abuur iyo ilbaxnimo cajiiba إيران waxay ku talaa galbeedka Aasiya gaar ahaan bariga dhexe waa marin istiraatiiji ah oo isku xidha Aasiya, Yurub iyo Afrika waana sababta ay muhiimad weyn ugu leedahay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka dalka Iiraan waxa uu ku fadhiyaa cabir dhan ku dhawaad 1,648,795 kilomitir square taasoo ka dhigaysa dalka 17aad ee ugu dhulka weyn adduunka waa dhul buuraley ah oo lama degaan ah sidoo kale waa dal leh dooxooyin qurux badan Iiraan waxa ku nool in ka badan 8 milyan oo qof taasoo ka dhigaysa dalka 18aad ee ugu dadka badan adduunka dadka intiisa badani waxay ku hadlaan luqadda Farisiga ama Bershiyaanka boqortooyadii Bershiya waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyinka ugu awoodda badnaa dunidii qadiimiga ahayd boqortooyada Bershiya waxa la aasaasay qarnigii 6aad ka hor dhalashadii Nabi Ciise waxa hormood ka ahaa Cyrus the Great oo si cadaalad ah dadka u maamuli jiray intii u dhaxaysay boqortooyinkii Akhmeniyiinta iyo Assassiniyiinta Iiraan waxay lahayd diin u gaar ah oo la yiraahdo Zoroastrianism markii islaamku yimid qarnigii 7aad Iiraan islaamka ayaa ku fiday islaamkuna wuxuu noqday tiirka ugu weyn ee dhaqanka iyo siyaasadda Iiraan kacaankii weynaa ee 1979 wuxuu bedelay taariikhda dalka boqorreysi Shah waa la riday waxaana xukunka dalka la wareegay culimo awdiin oo hogaaminayo Khomeini tan iyo markaas Iiraan waxay ahayd jamhuuriyad islaami ah Iiraan maanta waa dal si weyn ugu lug leh siyaasadda caalamka gaar ahaan arrimaha nukliyeerka kooxaha Shiicada ee gobolka waana dal saldhig u ah diinta islaamka gaar ahaan firqada Shiicada Iiraan waxay u leedahay 7 dal oo kala ah Afghanistan, Pakistan, Turkiga, Iraq, Turkmenistan, Armenia iyo Azerbaijan sidoo kale waxay leedahay xeebo muhiim ah oo ku yaala gacanka Carbeed iyo badda Caspian Tehran waa magaalada ugu weyn ee dalka waana xarunta siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo warshadaha Tehran waxa ku yaala jaamacado waaweyn xarumo cilmi baaris iyo xarumaha ugu muhiimsan ee dawladda Mashhad waa magaalada labaad ee ugu weyn Iiraan Mashhad waa xarunta ugu weyn ee Shiicada waxaana ku yaala qabriga Imaam Rida oo ay rumaysan yihiin Shiicadu inuu yahay imaamkoodii 8aad magaaladan ayaa ah goob diimeed taasoo ay malaayiin qof soo booqdaan sanad kasta Isfahan waa magaalo qurux badan oo taariikhi ah waxa ku yaala dhismayaal ka hadhay boqortooyadii Safaawidda magaaladan waxa loo yaqaanaa Half of the Wall sabab la xiriira farshaxankeeda iyo dhismayaasha taariikhiga ah ee magaalada caan ku tahay magaalada Shiraz waa hoyga suugaanta iyo beeraleyda waxaana jirta in ka badan 4,000 oo sano magaalada Shiraz waxa ka soo jeeday gabayaaga weynaa ee Xaafid iyo qoraagii caanka ah ee Sahid Shiraz waxa lagu naanaysaa magaalada ubaxa sababtoo ah beeraheeda quruxda badan iyo jawiga cajiibka ee gaar ku leedahay Iiraan waa dhul leh taariikh fac weyn iyo qurux dabiici ah sidoo kale Iiraan waxay leedahay hidiyo dhaqan qoto dheer inkastoo ay jiraan khilaafaadka siyaasadeed ee dalkaasi wajahayo haddana Iiraan waa meel dalxiisayaasha u noqota lama ilaawaan sanadadii u dambeeyay dunidu waxay martigelisay khilaaf ka dhashay samaysashada hubka nukliyeerka ee dawladda Iiraan balse Iiraan waxay sheegtay in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabadeed oo ujeedadiisu tahay soo saaridda koronto si ay u gaaraan isku filnaansho xagga tamarta ah balse wadamo badan oo ay hogaaminayaan Mareykanka iyo Israa'iil waxay ka walaacsan yihiin in barnaamijkan uu leeyahay ujeeddo ciidan taasoo dhalisay walaac badan oo ay ka qabaan reer galbeedku Iiraan si ay u samaysato nukliyeer waxay la kulantay cunaqabatayno iyo murano caalami ah GDP gudaha Iiraan sanadkii 2024 waxa uu gaadhay ku dhawaad 420 bilyan oo dollar dakhliga qofka Iiraaniga ah sanadkii waa qiyaastii 4,800 dollar dhaqaalaha Iiraan wuxuu ku tiirsan yahay saliidda iyo gaaska dabiiciga ah
sidoo kale iiraan waxay ku tiirsan tahay warshadaha beeraha iyo tiknoolajiyadda iiraan waxay leedahay nidaam waxbarasho adag waxbarashada dugsiga sare waa mid waajib ah jaamacadaha caanka iiraan waxaa ka mid ah University of Tehran Sharif University of Technology iyo Amir Kabir University iiraan waxay aad xoog u saartaa cilmi baarista iyo horumarka sayniska tiknoolajiyadda engineeringka iyo xisaabta iiraan waa dal islaam ah oo cilmiga u arka sharaf iyo horumar inkastoo ay jiraan caqabado haddana nidaamka waxbarasho iiraan waxa uu soo saaraa jiil maskax badan aqoon sare leh kuna faana dhaqankooda halka ugu jooga sareysa iiraan waa buuraha Demiwindi waa buuro fulkaan ah dhererkooduna wuxuu gaadhayaa 5610 mitir taasoo ka dhigaysa meesha ugu sareysa iiraan iyo guud ahaan bariga dhexeba Karun River waa webiga ugu dheer iiraan dhererkiisu waa in ka badan 950 kilomitir webiguna wuxuu ka soo bilaabmaa galbeedka iiraan gaar ahaan buuraleyda Sakros waxaana ku dhamaadaa Shaatal Carab sidoo kale wuxuu maraa gobolka Khazakhstan waxaanu muhiim u yahay waraabka tamarta iyo dhaqaalaha sida buuraha Alborz u qurxiyaan dhulka iiraan qarniyo badan ay dunida ku qurxinaysay ilbaxnimo suugaan iyo cilmi barnaamijkeena kaliya wuxuu muujinayaa qayb yar oo ka mid ah taariikhda iiraan balse xaqiiqda iiraan sida kaliya aad ku ogaan kartaa waa marka aad dhageysto codka bulshadeeda akhrida taariikhdeeda ee aad booqato gudaheeda